أنا وطنية أدا وطنية أنتي وطن كله أيا وطنية أنا وطنية أدا وطنية أنتي وطن كله أيا وطنية أنا وطنية أدا وطنية أنتي وطن كله أيا وطنية أن حسبك وطني حارونته وكله هي أن مقالة سيلع وأم الصومال أن هوية الصوماليين ما شاء الله أن الحمد لله رب العالمين أن بالله يقانا مركا دير عيقتو يعني ورابط الحمد لله رب العالمين كل كاوحان لهي أن حسبيغان أرتا وداني وحسبي مقرنيسا مستقبل يرجو وناكسن له إلهي سبحانه وتعالى يساق أرلدان يكون كالورتا إنك كيني ديتنا وحول المامول يعني خليفة سميسانا يا أبونا خليفة دي ما أنت أرلدا جوجتي يعني عيد كلا لكيني مايو عيد كلا مقرن مسؤول لوغا ديق مايو قوم كلا إيمان مايان وإنكم waxa istawliye in meesha magaraysa jilba jiilun buusi waxaynaya kolka maanta waxa aynu leenahay waa xisbi amba aan oran karayno yani party maanta anfacaya gobolkeena Salal maanta markaad eegto Salal yani anfacaya dalka iyo diinta yaa ugu horeysa waran adiinu nasiixa qulna liman lillah diinta anfacaya dadka anfacaya dalka anfacaya waxaan joognaa gobolka Salal gaar ahaan degmada Saylac waxaanu xafiiskii wadaniga xarunta gobolka Salal ee magaalada madaxdiisa Saylac aan xariga ka jarnaynaa xafiiskii gobolka gaar ahaan degmada Saylac xafiiskaas oo u adeegi doona bulshada ku nool degmada Saylac dhamaanteed waxaan rajaynaynaa insha Allah in dadka shacabka degmada Saylac oo dhamaantood ay baahidooda asaasiga iyo duruufaha ay ku nool yihiin ee adag inay la soo wadaagaan xafiiska degmada Saylac run ahaantii wallahi kolkaan soo galnay gobolka Salal gaar ahaan degmada Saylac waan kormeer baan u hayn indheena maanta waxaynu furaynaa xafiiskii degmada Saylac xarunta gobolka Salal kaas oo arkaysaan maanta inay xagaa tahay waqtigeenu ku soo beeganayna ay bishii 8 tahay dadkii bulshadii badi ku nooleedna ay ardaydii fasax yihiin iskuuladii fasax yihiin xaasaskii caruurayna ay wada xagaa baxeen meelaha xeebahana waxa lagu yaqaanaa badi 3 bilood ugu kulul in laga xagaa baxo taasaa u wacan wadada yaraanta magaalada ka jirta laakiin anagu waxaan u soconay waa ilaa iyo 54 police station oo ka tirsan gobolka Salal ayaanu intii ugu badnayd imika soo dhameynaa xafiisurkoodii imika degmadii lagu hayay iyo loo yaacadiyo toqoshiba noo haray hadii ilaahay ilaahdo fariinta waanu wada gaarsiinaynaa waa labada erey waxa weeyaan in loo codeeyo musharaxa xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro codka koowaad la siiyo madaxweynenimo loo doorto iyo in xisbiga wadani codka labaad la siiyo oo loo codeeyo fariintayada guud ee istaagaynin marnaba ilaa maalinta doorashada laga bilaabo ilaa maanta waa taa weeyaan ta kale waxa inta ay noo raacaa wad ogtiin xaaladda maanta ay ku sugan tahay gobolka Salal dalka guud ahaan weynu ognahay wuxuu u baahan yahay dalkan isbedel maamul siyaasadeed dhaqaale in la gaarsiiyo nin haran kala hawsha dawladnimo ee ballaaran ee isku haynta ummadda inta leegay kala qabiilooyinka kala qoomiyadaha isku qoomiyad bana kala qabiilada oo magac qura wadaaga Soomaaliland la yiraahdo sidii horumar loo gaarsiin lahaa ay uga mid noqon lahayn ummadaha adduunyada ku nool ee jamacadda qurumaha ka dhacaysa calankeena uga baban lahaa ayuu xisbigani ballan qaadayaa inuu gaarsiiyo ummadan dawlad taama oo la ictiraafo oo adduunyada ka mid noqota ayuu hadafka xisbigani yahay anagu waxaan xisbigan ugu ururnay hadafkiisu waa ka weeyaan mar hadduu ka yahay dadka wixii jooga Soomaaliland guud ahaan wax maqan iyo wax joogaba waxaanu ku mideysanahay Soomaalilandnimada weeyaan meesha maanta ahaan gobolka Salal degan inta yaduba isku tiirsanaan iyo midnimo iyo alwaxda iyo sinaan intaba ku wada hadlayna waxaan leenahay anagu maanta inooga dambeyn waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala mid dalka iyo dadka iyo diinta lagu qalisan anagu dhaqankayga hadaan dhaqan leenahay diinta xoog nagu xoogan dadku hadday nafoogu noo wanaagsan yihiin alxamdulillah xagga ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaahina waa qafuur raxiim waa dambi dhaafana xariis badan dalka iyo dadka mid anfaca maanta waxaan leenahay oo ku daba joognaa maanta waxaan leenahay waa Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdilaahi Ciro baan leenahay hanahay xaq ma garanaysaa musharaxnimo doorashadeeda iyo xaq xisbiba adigaan ku nahay ciisana maanta waxa weeyaan waxa la yiri ciise maanta waa ku diyaar
waayihiisana wuu qabaa wakhtiga yaa waayaha noo dhigay cashir noo dhigay ciise haddii la yahay reerkii ciise la yidhi wuu ku sugayaa haa geebigiisii baa ku sugaya deed waxba hore looma siin dee imanka adiga maaragtay waddani la baxay kelmadda waddani la yidhaa balka rumee haa waan doonaynaa inaad rumaysidoo ay maaragtay ciise aad maaragtay horta aad ka bilaabtid waddani waa xusbi aad iyo aad u qiimo badan kana qiimo badan kuwani imanka aan sheegayna kale karti iyo firfircooni iyo waxaan ku raacnay aqoon waddani saabaan u dooranay horena waanu ahayn wakiilka u fadhiya Geerisa iminkana sidii baan ugu joognaa dhammaan waxaan doonaynaa haddii ilaahay uu qoro uu aqbalo inaan waddani warcad ka keenno oon codkayaga siino haddii ilaahay noo qoro haddaan nahay reer Geerisaad waxa weeye halkani waa tuulada Geerisa weeyaan degma u qalantaa halkani boqolkiiba boqol degma u qalantaa waddanka in badan baan sheegnay oon u sheegnay kulmiye oo nidhi waa degmo nooga dhig taa qudheeda waan ka weynay wax kale oo aan ka helno oo haba yaraate isbeddelana kulmiye kama hayno gobolka awdalba kama hayo halla wax isbeddela oo aan ka helay haba yaraatee lama hayo iminkana saacaddan aan joogno kama sugaynaba kolka horeba hore lagu weynay kolka intay cusbaydba maantana kama sugayno waxaan nahay anagu waddani aad baan u soo dhaweynaynaa guddida qabanqaabada ee Cabdi Saciid Faahiye uu hormoodku ka yahay uu noogu yimiday magaalada Geerisa waa dhulkiinii waa dhul ciise waa dhul Soomaaliland ku soo dhawaadaan leenahay odayaasha iyo waxgaradka halkan joogana aad baan iyagana ugu soo dhaweynaynaa madashan inta qolkaan inta ku dhaafo ciyaari waa gali dambe cirro waxaanu leenahay anigu xildhibaankii waxaan ahay ka soo baxay deegaanadan halka aan joognay ee Geerisa 1500 qof baa ka diiwaan gasha 1400 aniga ka soo baxay ana ii codeeyay intii iyo in libilaabana maanta diyaar bay ku tahay maxaase lagaaga fadhiyaa halka maanta aan joognay inaad soo joogsatid musharax madaxweyne cirro waxaanu leenahay halka maanta aan joogno iyo meel kastuu ciise yaalla inaad soo joogsatid oo dan wixii ciise aw lahaa aad halka kaga hadashid iyaan ka sugaynaa oo diyaar u nahay aragaaga muhiima goob walba ciise yaalla dan wixii aad u haysid inaad ugu tagtid oo waxa weyn ugu warantid meesha waa lagaaga fadhiyaa maanta waa gogol xaad hadalku ma badno guddidaasina dan iyo deeq wixii ay satay waan ka guddoonnay salaanadii ka sidnaa musharaxeena madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdilaahi Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo guddoomiyihiisa Xirsi Xaaji Cali Xasan ee xisbiga waddani salaantii ranbanadii ka sidnaa naga guddoomo marka hore kuwii horena saasumaan u gaarsiinay salaan dabadeed annagu sidaa uu xildhibaanku sheegay kormeer baan ahayn calaamadihii xisbiga qolalkii guryihii rinjiyeyntii iyo baraarujintii baan ahayn waxaan idiin soo kaxaynaynaa oo idiin iman doona haddii ilaahay ilaa musharaxii oo wato waftigiisii oo buuran oo maca guddoomiye xisbigu la socdo waxaan ballan qaadaynaa halkaa u keenno waa sidaad jeceshihiin halkaa hortiina inaan soo joojinno ayaan ballan qaadaynaa walaalaheenii kale ciise soo marnayna sidaa un baan ugu sheegnay isku wada cod baa tihiin isku wada dan baa tihiin isku wada duruuf baynu nahay maantana inagu cirraba u daynaynin innagaa danaysanaynaa danteennaan ka aragnaa xisbiga waddani soo sidaa maaha inagu isaguna danteennu ka arkaa dantiisu ka arkaa ciisaha sidaa daraaddeed inagoo isku darsanaynaa waxaan maanta ballan qaadaynaa inaan anagu halkaa hortiinna keenno oo wixii aan isweydaarsanay wixii aan is odhanayno oodhaaba labadaba teeq iyo danba halkaa isku dhinaano iskool xumaa ka jirta dhakhtar la'aan baa ka jirta gaadiid la'aan yacni isku gudub islaanta iminka foolataayey jabuutina ma gaadhi karto hargeysana ma gaadhi karto waa qadar allah maa shaa facal waa yahay wadda xumada maanta ka jirtana iyo gaadiid ma garanaysaa yacni dariiq xumada ka jirtana waxa weeyaan saacadda waxaana soo gaadhsiiyey 12 habeennimo weeyaan waaye dee waxaa la yidhi tala rag iyo rabbi leh ma xumaato ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala awrkaagana dabra buu yidhi anigana ay tala saaro maanta nin dalka iyo dadka iyo diinta anfaca anu diintaaba ka sii jecelahay dalka iyo diinta anfaca oo dadka nafahooga ku dadaala nafaha bilaadanka ku dadaala oo masaajidda iyo madaarista iyo quraanka ilaahay iyo xadiistiisa noo furo noo waxeeya
ninkaga cilmiga aqoon badan maanta ma jirto allaha sii weliba sii faasiiye sheekh cabdiraxmaan ciro cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro anu ha noolaadaan leh ha noolaado war reer ceelgalow saacaddan waxaad u soo jeedaan waa maxay waxa weeye isaga iyo xisbiga uu ka yahay darawalka uu ka yahay amba uu ka yahay mas-uulka ka yahay ee waddani intuba ha noolaadaan cimrigooga allaha raajo dhar cibaadada allah siiyo haddaan nahay beesha ciise meesha joogtana ha joogtay waxa sugayni aan diyaar u nahay waa xusbiga waddani ilaahayna wax waan ka sugaynaa xusbigaa iyo madaaxdeedana waxbaan ka sugaynaa haddaan beesha ciise nahay ceelgaal ahaan markaan ugu soo noqdo waxaa weeyaan tuuladan ceelgaal dee baahiyo badan bay leedahay meeshaan ku naali waxaa la yidhaha salim miskiidka aan ku tukanno dabayshiiba aastay ciiddii baa tagtay samada ina naga qaado oo u baahannahay dhakhtar halkana xabadda u aho qof maanta dhibaata ay hesho xabad kiniina weli lama hoos dhigin ceelka soolar yaroo hayay noo keenta way naga xumaato way xumaatay caawa hadday birtaasi doogsato dee ceello kuuma qodno cidna kuma maqno weyn dowladda somalilan ee muuse biixi uu madaxda ka yahayna weli wax gurmad iyo wax gargaara midna kama hayno marka waxa weeyaan walaalayaal haddaan beesha ciisan nahay xusbiga waddani diyaar baan u nahay ilaahayna waxbaan ka sugaynaa hadafkoogii iyo maaragtaanay qarannimada berri ay kursiga fulayaan ay ummadda hoggaaminayaan waxbaan ka sugaynaa diyaarna waanu nahay fariimihii iyo sahankii aad noo keenteenna waa niga guddoonnay dhammaan waxaan idinka mahadnaqaynaa sida diiran eed habeennimada iyadoo ay saacaddu tahay 12 habeennimo aad noogu soo dhowayseen markii labaad iyadooaynu maalintii hore ee khamiistiina isku aragnay halkan mar labaadkiina caawa aannu idin soo marnay waxaannu idinka mahadnaqaynaa labada jeerba soo dhowaynta wanaagsan iyo sida diiran eed noo soo dhowayseen baan idinka mahadnaqaynaa sidaan horeba idinku sheegnay salaam baannu idiin sidnay aannu idinka sidno musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo guddoomiyaha xisbiga xirsi xaaji cali xasan iyo dhammaan xisbigiiba salaantaanna horena waan idinku sheegnay mar labaadna idiin sheegnaa naga guddooma intaa waxaa noo dheer annagu kormeer baan ahay sidaan idiin sheegnay waxaan furaynay xafiisyadii degmada saylac oo dhan iyo dhammaan lughaye xafiisyadoodii markaa annagu waxaan ahay wacyigelintaasna waxaan idin faraynaa ama idiin sheegaynay dadka taageersan xisbiga waddani dhammaan ee jooga gobolka salal waxaan ku wargelinaynay oo ku wacyigelinaynay inay laba cod bay leeyihiin labada cod midna siiyaan musharaxa madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi midna siiyaan xisbiga fariintayada guud ee ilaa maalinta doorashada soconaysa horta iyadu waa taa marka laga yimaado wakhtiga uu bilaabmo ololuhu oo dhow oo soo bilaabmi doona ama kormeerka ay u marayaan madaxdu waxaa soo dhow wakhti dhow idin iman doona musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi baa soo mari doona deegaanka oo dhan dadka taageerayaashiisa baanu u iman doonaa markaa waxaan idinku wargelinaynaa si aydaan qaflad idinku noqonin socodkaasi inaad ogaataan diyaarna u ahaataan taageerada muggale u haysaan xisbiga ceel gaalbo waxaa ayn caan ku tahay shidaalkii macdanta iyadoo ugu badanay leedahay marka la og yahay waxa weeyaan waa shidaalkii heemaal 1 iyo heemaal 2 ee shafron qoday ee weli la jawaab laga hayna daboolan waa waxyaabaha lagu soo hiranayo waa meelaha ugu wanaagsanaanaya khaliijku barigii hore sidan u buuhaa maantana waxa ka socday iyo wax sida uu yahay iyo noocu u egyahay waad garanaysaan waa shidaalka yarun baa loo qarxiyey oo qarxay innagana waa dul fadhinaa ilaahay baa inoo soo saari doona markuu ilaahay inoo soo saarana kuwa ka faa'iidaysanaya ee ugu horeeya waa idinka ee madaradahan iyo waxaan yeelan doona de waxaasna waxay u baahan tahay tacabkaasna yaa waxa samayn kara waa dawlad waa madaxweynuhu madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaan ka doonaynaa ama ka rajaynaynaa inay himilooyinkeenna noocaasa inuu inoo fuliyo
xusbiga horta awalan waan taageeraynaa xogayaha xusbiga waanu taageeraynaa waanu soo dhaweynaynaa dhammaanteed gacmo furan degmadii Garbadadar ku soo dhawow baan leenahay annagu waanu iska warqabnay oo waanu soo wada shaqaynaynay insha Allah xusbigana mar horeba taageero waa looga fidiyay halkani oo warbixintiisu waa gaadhay iminkana waxa heegan baa loo yahay inta uu ka imanayo maaragtana musharax Cabdiraxmaan Ciro heegan baa waana loo soo dhaweynayaa degmadii Garbadadar gudoomiyaha xisbiga wadanina oo soo dhaweynaynaa socdaalkiisa iyo tiimka Garbadadar iyo gobolka Awdalba maanta waxaan leenahay annaku insha Allah taala ilmaha dhabarka lagu sidina waa wadani ilmaha dhabarka lagu sidina waa wadani gobolka Awdal ayaan leenahay waan soo dhaweynaynaa xisbiga Cabdiraxmaan Ciro iyo xisbigaba insha Allah taala diyaarna waan u nahay isbedel diyaar baa loo yahay bulshaduna diyaar bay tahay insha Allah taala foodkan inuu si khayr qabo nagu qabsamo ayaan jecelahay muraha ka dhalan doonana diyaar baan u nahay insha Allah taala kow bulshada reer Garbadadar ee halkan waa degmada Garbadadar oo ka tirsan gobolka Salal waxay doonaysaa maanta isbedel buuxay doonaysaa waxa loo socdaano waa wadani xisbiga hore waa la tijaabiyo la arkay wax qabad laantiisa iyo ma garanaysaa nidaam xumadiisa maanta waxa la rabaa isbedel baa la rabaa kow iyo wax qabad laga rabo oo laga rajeynayo xisbigan cusub ma taqaana wadani gobolka Awdal waxa laga taageersan yahay xisbiga wadani horena waa looga taageersanaa labada gobol ee Salal iyo Awdal maanta meel kale ma aha labadaasi waxay maanta yihiin waa xisbiga wadani madaxweynaha xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro iyo musharax isagu waxa weeye gudoomiyaha xisbiga Xirsi Xaaji Xasan Cali labadaaba waxa weeye diyaar baa loo yahay waanu soo dhaweynaynaa walaalayaal soo dhawaada maanta dalagu soo dhawaada fartiina maanta waxa weeyaan eeday halkan oran mayse waa fartin walba fartiisu eersani hora loo eeday laakiin maanta waxa loo codayni cidii wax u qabanaysa cidii u dana cidii wax ku taraysa cidii dhageysanaysa in wafti balaaran oo kormeera oo gogol xaada oo u gogol xaadaya musharaxa dhammaan deegaankeenii oo dhan ciisuhu degayay dhammaan waan soo marnay maca kuwa kale bursuga la dego dadku dhammaantood niyad sami ayay u hayaan xisbigan wadani dadku waa isbedel doon maanta iyadoo ay sidaa tahay hadana isku xidhkii dadka iyo dadku waxay jeclaayeen intaan maraynay kormeerka waxay dadku jeclaayeen inay arkaan musharaxa inay arkaan bay codsanayeen dhammaantood annana waxaan u ballan qaadnay insha Allah haddii alla yidhaahdo inuu soo mari doono isaguna diyaar buu ahaa una jeclaa dhowr jeerna uu nagu yidhi inaan tagaan jeclahay waa isla soo doonsho ilaah taasi oo labadoodu way isdoonayaan shacabka iyo Cabdiraxmaan way israbaan Allah istuso taas waa inta talabaad waynu ognahay inagu maanta duruuf gaara ayaan leenahay maanta annaga u baahan Cabdiraxmaan isaguna uu inoo baahan yahay sababtu waa maxay interestibu gobol waliba leeyahay dambu gobol waliba leeyahay inaga gobolkeena dantiisii iyo arrimihiisii maanta waxay ka muuqdaan isbedel doonka halkaaban inagu ku leenahay duruufeena waynu isognahay dhinagii waa og yahay doqona loo sheegi maayo waxa kale awalba dadka waxbaan kala mid ahay inoo kala qabnay oo dadka duruufta dalku inagu wada ma hayno batroolkeeni lama soo saarin warshadaheeni kalluunka lama samayn midixdeeni warshado lama samayn wadankeenu wadooyin male caafimaadkeenu wuu liitaa biyuhu waa ka daran yihiin bad weeyaan banka aad ogtiino biyihiisu riiga marka saa loogu soo taagaba biyuhusaas u soo booday haddana waa laga oomayahay waxaa laga samayn karaa webiyo bada oo telefishin ayaa intaa laisku furo oo samaysmaya haddana ma jiro horumarkii ma jiro sababtu wax kale ma aha markii dowladda Soomaaliland la asaasay customiska saylac yaa shacab lacagta ka soo baxaysay waxa loo jiray ciidamada la siiyaa shaqaalaha dowladda la siiyaa maanta dekada barbaro qura ku filaamay Hargeysa cashuuraha bariga laga qaado lacagta cashuuraha bariga Hargeysa laga qaado qura ku filaamay miisaaniyada oo malaayiin dollar ma inaga waxa loo baahan yahay lacagta degmada saylac laga soo qaadayo in dalka lagu dhiso gobolka Salal lagu dhiso oo lacagta loo daayo loo xidho
2% baa loola jiray barigaa loo xidhay dhammaanba wixii ka soo baxatan in loo xidhaa bay xaq u mudan tahay 3 maalmood waxaan ku xidhnayn oo shaqadii aan qaban lahayna aanu qaban kari weynay saylac waxaa nagu dhacay oo baan gallay badxidhan baan gallay halkii aan ka soo gallay oo tokoshiyahayd ayuu daad soo maray cashuuro meelaynaa buuxsantay daadka ogiyo waayeba baabuurba wax soo gelaya wax soo baxaya midna ma jiro 3 maalmood lagu qaatay ina sugnaydu daadkii iyo dhoobadii iyo wax ka baxayeen meesha intaasna waxa markaan aragnay wax weeyaan waxba ku filayd gebigeedaba Irish British adag oo loo sameeyo ama dixdo sidii berigii hore halka inta laga leexiyo Bariisle ayay banka dhan bay saa fuul jirto biyo ka ku baahi jireeno way fadhiisan jireen Bariis laga beeri jiray waxa imkana loo baahan yahay magaalada la goodo laga dhigayna in loo keeno fikir waxaan kaga baxayaa innaga waxaan isku ognahay inaynu doorano musharaxa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro aynu u doorano madaxweyne soo sidaa maaha ballanteenu waa taa xisbiga wadanina aynu u doorano xisbanimo laba cod baan leenahay